dowladda Iiraan ayaa shaaca ka qaaday in ay diyaarsatay in ka badan 1800 oo kantaalo oo xawaaro sare leh kuwaas ay ku tilmaantay inay yihiin kantaalada guuxooda ka dheereeyay loo yaqaano Haybarson. kantaaladan ayaa loo jeediyay dhinaca Israa'iil gaar ahaan xarumo muhiim ah sida xarunta nukleerka ee Dimona. arrintan ayaa fariin cad oo ah in Iiraan ay si toos ah uga jawaabi doonto haddii xarumaheeda muhiimka la weeraro. Fuad Shukri oo sargaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Jamhuuriyadda Iiraan ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga in haddii uu cadowgu isku dayo inuu waxyeello u geysto xarumaha difaaca ama nukleerka ay jawaabta Iiraan noqon doonto mid degdeg ah oo xad dhaaf ah oo ay ugu horeeyaan bartilmaameedyo kala duwan oo ku yaala gudaha Israa'iil. Fuad Shukri ayaa sidoo kale sheegay in Iiraan ay samaysay tijaabooyin cusub oo ay ku muujisay awoodeeda dhinaca kantaalada cusub kuwaas oo uu ku sheegay inay gaari karaan bartilmaameedyo fogfog waqti aad u kooban. dhanka kale dalalka khaliijka carabta sida Sacuudiga, Qatar, Kuwait iyo Bahrain ayaa si cad Iiraan ugu wargeliyay inaysan ogolaan doonin in dhulkooda loo adeegsado weerar military oo ka dhan Iiraan xilli ay warar soo baxay ay sheegayaan in Mareykanka iyo Israa'iil ay ka wada hadlayaan suurtagalnimada weerar ka dhan xarumaha nukleerka Iiraan. madax sare oo ka kala tirsan wasaaradaha arrimaha dibadda ee wadamadan ayaa sheegay in ay si wadajir ah ugu cadeeyeen dhinaca Tehran in aysan diyaar u ahayn guluf military oo laga soo abaabulo khaliijka carabta oo lagu ekeeyo dhinaca Iiraan. inkasta oo ay dalalkan saaxiibo dhow leeyihiin Mareykanka kuna leeyahay saldhigyo ciidan oo waaweyn sidoo kale maraakiibta dagaalka Mareykanka ay ku sugeen xeebaha khaliijka carabta haddana waxaa la xaqiijiyay inaysan doonayn in dalalkooda laga dhigo saldhigyo military laga weeraro dhinaca Iiraan iyaga oo ka baqay inay noqdaan bartilmaameedyo toos ah oo Iiraan ku jawaabto. talaabada ay Iiraan qaaday waxay imaanaysaa xilli ay sii kordhayaan hanjabaadaha isdhaafsan oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan kadib weeraro dhowr ah oo lala beegsaday danaha Iiraan ee gudaha Suuriya iyo Ciraaq. diblomaasiyiin reer galbeed ayaa walaac ka muujiyay in xaaladda hadda jirta ay horseedi karto dagaal weyn ka dhaca bariga dhexe kaasoo saameyn weyn ku yeelan kara dhaqaalaha adduunka iyo xasiloonida gobolka. Iiraan waxay muujinaysaa in ay diyaar u tahay in ay si degdeg ah uga jawaabto weerar kasta oo lala beegsado isla markaana wadamada khaliijka waxa ay door biday in aysan qayb ka noqon xiisadaha cakiran iyaga oo door biday dhexdhexaadin iyo ilaalinta xasiloonida gudaha. waxaa hadda la eegayaa sida Mareykanka iyo Israa'iil ay uga jawaabi doonaan fariinta Iiraan ee ah weerar uu imaan kara balse jawaab ayaa ka daran.